السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وين السلامي سلام كبعدي ولا ليال معنتو انتي هوري إلى جوكت أدي أدو مادسيين لا ترى انتي هوري إلى جوكت أدي أدو مادسيين تيجو صبيرتن أدي أدو مادسيين سيدا وكلا طلع انت هبين وتاي سومالي محمد هبين وناكسن انت مالهم تاي maanta video cusub baa inii wadnaa asxaabey gabadhan oo la dhaho Nasro oo walaashay ah oo in badan ka soo muuqan doonto intii horena way iga soo muuqatay laakiin mashquul bay noqotay Nasro soo daa oo qiso xanuun badan wada aad u mahadsantahay walaashii shukr thank you oo kuleeyahay asxaabey maanta qiso inii wada ku saabsan gabar ku dhacday qisaas oo ka dhacday dalka dibadiisa gabadha waxay dhigan jirtay iskuulka marka ay dhigan jirtay iskuulka waxa u dhaweyd meel kaniisada maalmaha kamid ah ayaa ninkii baadiriga ah gabadhii iyadoo bas sugaysa uu meesha ku arkay wuu salaamay way ka qaaday wuxuu ku yiri maasha Allah gabar qurux badan baa tahay maartay inaan xarma isbarano gabadha adiga may dhahday isma baran karno way ka tagtay baskeedii hore iskaga sii raacday dan maalintii labaad waa hadana sidii oo kale meeshii bas ka raaci jirtay oo gabadhii maartay uu ku arkay wuxuu ku yiri isha maxay tahay ka helay aad iyo aad baa qurux badan tahay gabar maasha Allah marka waxaan rabaa inaan ku guursado aad baan kaaga helay isha ma isguursan karnaa reerkiina maartay mu sheegi kartaa may dhahday neeba aniga waxay tiraahday gabar muslimadan ahay adigana nin gaalo baadiriya tahay tiraahdo kaniisad ka kaniisadna marka waxay dhahday isma geenay tiraahday amaan si maartay diintaada iyo diinteedu shaqo isku malaha aniga muslim baa ahay diinteedu iima ogolay tiri inaan nin gaala guursado way ka tagtay adiga gabadhii guriga iska aaday ninkii wuxuu ku fikiray gabadhii inuu afduubto maalin maalmaha kamid ah gabadhii uu afduubtay markuu afduubtay guri kaniisada u dhawaabu gabadhii geeyay gurigaas asaga dhan waxa waa shub cidna kama soo baxday cidna uma deganaan asaga cidna ka maartay isha maartay xitaa shaqaalihiisa ma seexan jirin gurigaas nimaaqa wuxuu ugu talgalay kulay shub buu ahaa intaasoo albaabna wuu lahaa adiga gabadhii gurigii buu geystay isha gabadhii markuu guriga geystay gabadhii xitaa muusan aaminine lugtu wuxuu uga xiray silsilad markuu lugta silsilad uga xiray gabadhii adiga meeshaas gabadhii adiga maartay ilmo uga dhalay suu doona u isticmaalay dhaqan xumo xitaa buu isticmaalay gabadha maartay adiga gabadhaas banaan xitaa maysan arki jirin 15 sano ay meeshaas ku jirtay ilmana way u dhashay ilmo meeshaas ugu dhashay waxa haduu xitaa umuliso xitaa maartay umuusan keeni jirin maartay haday dhalayso asaga baa ka dhalin jiray waxa alaal waxay rabtay meeshaas ugu keeni jiray lugtana way ugu xirneyd maalmaha kamid ah gabadhii waxay ku fikirtay qof walba si uu yaqaanay aniga kulay waxaan u yaqaanaa isha maxaad ka lagu tolo waxyaalaha intii dhaqanka iyo waxaas iyo bay gabadhii darbiga meel kamid ah ku duloolin jiray intii ay meesha ku jirtay oo dhan duloolka markii dambe uu dulooshamay meeshaas ka qaylin jirtay nin asaga shaqaalihiisa kamid ah baa maalintii dambe maqlay markuu uu maqlay wuu wuxuu dhahay meeshan iyo ku jira qaylada maxay tahay yeeraysa adiga ninkii wuxuu maalin isha wuu qayladii busfac u dhigay dhawaaq